waxaan u malaynay dad dhaadheer oo cala weyn baa loogu talagalay halka inay ka hadlaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. runtii aad baan ugu faraxsanahay xafladda tan si dalag baaba laygu sheegay inay sidan noqonaysana maba filayn iyadoo dhaxan laga cabanayo oo banaanka aan joogno markaan soo galay waxaan u ekaaday anaaba dadka ugu soo horeeyay adigoo baabuur wato oo wadada maraya neef ugaadhay hadduu kugu soo baxo nalka kama baydhiya dhawaa weyn un baa ka soo hadha waxaaba ii raacay dhulka Mareykankan muddo ku noolaa uma xulan laakiin si dalag bay iyana u dhacday meelaba meeshay ka baraf badan tahay yaan joogay waxaan ku yaabay markaan halka soo galay waxaan isir aad badan bariyoonaysa wax baraf u eg oo dushayga ka yimi marka waa idin wada salaamayaa horta runtii farxad weyn bay ii tahay waa shirkii ugu horeeyay ee Somaliland khusuusi ah oo kacaan ah aan u soo galo waa igu horeysa marka bal horta ii yara kaadiya oo durba hay boobsiinina Somaliland dhul ahaan ama Somaliland protectorate waa u dhashay waxbaan ku bartay ilaa waqtigan secondary school sheekh ka baxay balaayadan taariikhdan uu la soo fagay 1940 iyo nala daba wado waxaan ilaa shalay iyo daraadiyaan maqlay ilaa 5,000 oo arday baa jaamacadaha ka baxa anigu waxaan xusuustaa kalaaskaygii waqti hadda aan lagu badheeraanayn la sheegaynin kalaaskaygii waxaa ka baxay 14 arday ya Somaliland oo dhan dhulka la yiraaho 14 arday baa secondary school ka dhameeyay koonfur marka lagu darana waxaan u malaynayaa school Jamaal Cabdinaasir la oran jiray iyo mid Talyaaniga Italian system-ka ku dhisnaa leeyahay la oran jiray labada iyo Somaliland inta ka baxday hadii la isku daro Soomaaliya oo dhan 1962 boqol arday kama bixin secondary school horta ma insha Allah hadii intanoo kumaan kuni ay ka baxayso laakiin laba arrimood in la iswaafajiyo fiican haddii waxbarashada oo waliba waxbarashada sare iyo shaqooyinka wadanka marka laga heli karo haddaan labadaas isu dheelitirayn hada dhibaatay keeni kartaa wadanada Afrika ay xogaa inaga horeeyay waqtiga annagu aan Soomaaliya oo dhan 100 arday ka baxaysay West Africa oo kale Nigeria iyo Ghana iyo dhulka ay kuwa Faransiiska ku hadlayay arday badan baa iskuulada ka bixi jirtay ardayda jaamacado badanna looma hayn jaamacado meel ay ka shaqeeyaan looma hayn dhibaatadu waxay ahaan jirtay school leaver problems arday iskuulada ka baxday shir ugu dambeeyay oo caynaba lagu qabtay saaxiibka Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo teamkiisii halka waa isugu nimi teamka hawsha noo wada socotay aan 7 sano soo wadnay waxa kamid ahaa saaxiibkay Faysal Cali Waraabe run ahaantiina maaha idinka hortiina inaan kala yahay 7 ahaayeen qoliyaha Somaliland marka ka wakiilka ah anana xaqayaga khaatuma 7 ahaayeen hadday Faysal Cali Waraabe ahayna intii hadda noo suurta gashay ma ay suurta gasheen hadduusan Faysal Cali Waraabe gudida ku jirin
هذا ميل في عنا وانوسو قادي هشيس نوابا كلا صحيحنا هشيسكي فلين بو باهيه هشيسكي aan ku celiyo mindeen xoogaa xalwadii baa la cuno energetic baa la noqdo durba xamxamarashadu waa badan tahay heshiiskii waa kala saxeexnay himiladuna ama yoolkuna wuxuu yahay Somaliland loo wada dhan yahay hadda Somaliland protectorate waa loo wada dhamaa oo waa la ahaa Somaliland laakiin sumaday noqotay kulli annaku xagga bariga meelaha jahooyin baanba ku bartay oo aanan saaba u kala aqoon geography-gaygu Hargeysa iyo gobolkan si fiican ba mideen geography-gaygu waa hore ay ugu dambeysay geografiyada saaba uma aqaan laakiin qoliyo xagga bariga fog ka yimi annaku waxaanu u isnidaahnaa Somaliland hadda laga hadlayo looma dhama waxa aan doodal aan u galay daacadna ka ahayn Somaliland loo wada dhan yahay in la dhiso idina inay cid kale marti u noqon maganna u noqon Somaliland la wada leeyahay in la dhiso heshiiskaasuna kaasoo asaaskiisu yahay de wuxuu u baahan yahay sidii lagu fulin lahaa maamulkan cusub aan rajaynayno hawsha inay 2-3 ka bacdi la wareegaan de uga minan fadhinaa intiinan dhalinyarada ah sida hadda muuqato halgan badanna soo galay political experience ama activism-ka iyo hawsha la wado na ku soo koray ku soo barbaaray hadda tan waxa la idinka baahan yahay doorkiina inaad ka soo baxdaan wixii aanu qoliyaha iyaga xagga ka yimi aanu tabanaynana inaad ogaataan waxaanu idinka codsan lahayn oo warkaygaan ku soo koobayaa waray Somaliland aanu wada dhannahay oo goonyaha ka wada joogno oo aan cidina marti ku ahayn cidina magan ku ahayn sidaynu ku dhisi lahayn hiil baa la idinka baahan yahay dhalinyaro